maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa albaabada jannada ayaa la furaa buu nabigu yidhi. waxaa loo dambi dhaafaa addoon kastii oo muslima oo ilaahay aan waxba la wadaajinin oo ilaahay aan waxba u shariig yeelin waa loo dambi dhaafaa buu rasuulku yidhi, ilaa 2 qof mooyee. labadaas qof oo dhexdooda ay dhex taalo shaxnaa, xurguf iyo colaad ay dhex taalo mooyaane, labadaasi loo dambi dhaafi maayo, waa loo kaadinayaa. waxaa la odhanayaa labadan u kaadiya intay ka heshiinayaan, labadan u kaadiya intay ka heshiinayaan, labadani u kaadiya intay ka heshiinayaan baa la odhanayaa. nasiib daro dad badanii maanta waxaa la leeyahay maalmo islama hadlaan, isbuucyo islama hadlaan, bilooyin islama hadlaan, sannado islama hadlaan. imisaa dambi dhaaf ayaa dhaaftay? war maalin kastaa qaldamaysaa, ilbiriqsi kastaa qaladkaa dhacaya, habeen kastaa qaladkaa dhacaya, maalin kastaa qaladkaa dhacaya, daqiiqad kastaa qalad galaysaa. soo uma baahnid in lagu dambi dhaafo, soo uma baahnid. walaalayaal iscafiya, walaalayaal iscafiya walaalayaal. maa min muslimayni yaltaqiyaan fayatasaafaxaan oo yatacaanaqaan ilaa qufira lahumaa qabla an yaftariqaa buu nabigu yidhi. 2 qof muslimiina oo ma kulmaan oo isma gacan qaadaan oo isma mucaanaqeeyaan ilaa waa loo dambi dhaafaa buu nabigu yidhi. intaysan kala dhaqaaqin waa loo dambi dhaafaa. dambi dhaaf soo uma baahnidiin, dambi dhaaf soo uma baahnin.